حالي وحصو صاري ور مرتيد دولة goboleedka Puntland golaheeda wasiirada xalay waxay soo saareen warmutida ay leeyihiin madaxweynaha Soomaaliland wuxuu u marayaa oo lascaano soo socdaa inuu colaad iyo ciidan iyo dadka cabrun keeno horta waxaan leeyahay taasi waa xashaan illah dadka reesool dad cabrun kale maaha ingiriiska bay iska celiyay waa dhashii daraawiishto ciidamo xoog iyo hanjabaad ugu taado walaaltinimo iyo maxamed laba loo tayo malaha qorada dhalinyarada wasiirada waanay aqoonaya dadkaasi walaaltinimo iyo maxamed yeela mooyee wax kala ma waxaan leeyahay Soomaali maanta uma baahna cabrin iyo xoog iyo dagaal intii haysan way ka daashay waliba dowlad goboleedka Puntland iyo Somalilandna waligoodna khilaaf hore iyo colaado hore kama dhaxayn waana isku xaalado labadu xaalado badan oo abaareed oo dhiban oo dhaqaalaha oo biyana bay haystaan malaha intaynu colaad iyo balaayo isku abaabulna waxa ka wanaagsan inaga oo dhahan maxay u kala qabanaa soo kaashana muranka qura ee naga dhaxeeya maamul goboleedka Puntland waxa weeye annagu waxaan aaminsanahay in xadkii Ingiriiska sida Afrika ku dhaqan tahay intii in Soomaaliland xaq u leedahay maamusho oo wax ka qabato oo nabad iyo barwaaqo iyo mid oo horseedo qolada garowe madaxda ana way leeyahay ruqooda wax dhaameysi qabiil oo Israa'iil wuxuu maamulo haday wuxuu inta tahay in rag iskaga leeydo oo inuu aqoon ku abuuro oo inuu hooyay ku gobolamaan aniga ilama aha intaas waa in hadal lagu dhameyn karo annagu maamulo bartiyaasaan u taagnay ilaa sanad muddo ana waxaan u taagnay walaalayaal nabad aynu gurudno wixii aynu ku doodinina aynu nabad kaga wado waxay la tahay Soomaali maanta colaad iyo dagaal meel walba in bitaa way hoostaada waxaan leeyahay Puntland anaga waxa noo dhaxyaalaan dadka Puntland waxa uu naqaanaa dad goba tala qabeena madaxa oo aan dadka ku ciirciirine qolada dhalinyarada ah ee iminka xukunka haysa wasiiradii bal sidii awooyaashood iyo boqorrada u dhaqmi jiray u dhaqmeeno miirka soo celiyaan baan leenahay gacanabada noo fudinayna Puntland iyo dadkooda عندما أينو إسرائيل دبعت كتاجنتها ومامل كمقدسة شو قيمك والدولة وهو قابل فرماتشو وحلاها وأنا سبدره مركيلا دورتين الرياضة وإنه الصومالية مدينه وحمر كدورتين وحمر الدبال دكتين وقبل الصومالية ورمود الدبال دين رام مسكح فيه وهرمر يلا وضو الله مريا وحيا درنا ما تضبك كعاية الصومالية هروك كسماية إيه حمر وسايستان oo kismaayo waxay ku duulaysaa xamaro dawladii goboleedka kismaayo ku duulaya farmaajo wuxuu ku duulayaa tii baydhabo oo qeyda ka taagan ama maqlaysan oo maanta baarlamaanka madaxa isu galiyay waxaad arkaysaa ta ka socota cadaada iyo dhuuso mareeb mas'uuliyadu ka dhigay waxaad arkaysaa gaalkacyo oo qaybsan waxaad arkaysaa Puntland oo sida uga cabarayso adeegsanaysan maalmii dhawto waxa soo dhaafay inta markuu la dagaalamo wuxuu yiri berbera wayna weerar caalamka la qabtaa wayna Soomaaliland la dagaalamaa warninkan dagaalka Soomaali magaalo ula dagaalamayaan annagu lana ilaahay shirkiisa idinka ururi oo inuu baahanaa inaynu aqal celino hadii loo aqal celin waana la iska qabtee annagu ku filan garow uma soo socono mana qixinayno mana rabna dhibaato gaadho waxaan ku soo koobayaa masiibada maanta Soomaaliya u taagan waa dawladda farmaajo xamar taala ee xamar iyo Soomaaliya isku gubtay Soomaaliland oo soo haqtaagaysa haddaba Soomaaliland waxaan u sheegaynaa way ka madax banaantay Soomaaliya waxaanay ku doortay haddaynu kala madax banaanahayna colaad iyo xumaan iyo weerar iyo nacayb midna laguma jiro taariikhda wixii dagaal dhacay way dhamaadeen dad ciil qabana ma nihin oo wixii dhacay ciil maaluula ka taagan laakiin waxaanu ka yaabnay kuwii hore wixii ay sameeyeen kuwan ka waalay xawr fadhiyeen walaal ku asan u soconaa Soomaalidu gacanabad baan u taageynaa wixii dhibaato hadal lagu xaliyaa leenahay aad iyo aad oo maadsantii raacaynagu aad iyo aad baan gobolka Saraar waxaynu u soconaana Soomaali iyo cid walba nabad la doonayna ninkii nabad diiday loo taag waana waa edbinayna wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh